cabdifataax ibraahim oo bulshada garanaysa ay u taqaan ustaad amiir dabcan haddii aad ka mid tahay dadka isticmaala baraha ay bulshadu ku wada xiriirto waxaad xasuusanaysaa inuu yahay mucallimkii farquuxinta iyo saxiixa ee aaladda tigtag caanka ka ahaa laga codsaday saxiixa magaca cabdiraxmaan waxaa leenahay sidan waxa ugu horreeyay aan bilaabay waxay ahayd waxa loo yaqaan farquuxinta oo aan arkay in baahi badan ay jirto bulshada oo ay u baahan yihiin waxaan ugu dhaliyay waxay ahayd ilmo yar yar ah oo saddexaad afraad aan iskuul u dhigayay macallin baan qodayda ilmihii san ugu dhigayay amaada Soomaaliya inta la ugu dhiibay ayaan farquuxinta ugu daray dabcan markaas hadafkayga ma aysan ahayn farquuxin laakiin maadada baan dhigayay ilmihii ayaa waxa markaa waxay ku soo baxeen fartii baan ugu dardaray ilmihii waxay ku soo baxeen wax aan la mareysan karin horta maalintaas baan waxaan ogaaday in dadkan aan farquuxin bari karo laftigaygu markaan isqiimeeyay laakiin ani waxaan bartay waa hore axmed ibraahim mucallim waa ninkan xiran qamiiska waxa uu ka mid yahay dadkii ustaad amiir ka bartay internetka kadibna ka faa'iideystay culumta uu ku gudbiya halkaasi social media ma taqaanish dad baan ka faa'iideystay arday baan ka faa'iideystay aniga social media ka arkay macalinka ii sheegay pagesan ka soo arkay farta macalinka waan u tagay waan madrasa ii sheegay akademiyada waan ka qaaday macnaha waan ka mid noqday wallahi isbedel badan aan dareemay ii sheegay inaan maadadii barto inaan mataa saxiixiyada aan hadda sameeyo oo aan dhiijin waxa saxiixda xaqiiqdii markay waxaan jimata ii sheegay aan saaxiibada u sii faa'iideeyo oo inta ii imaadaan aan u sii qoro aan saxiixda ka sii saxo cabdifataax ibraahim ustaad amiir baraha uu isticmaalo ee kala duwan waxa kaliya ee uu ku soo gudbiyaa waa cilmigan farqurxinta iyo saxiixa xaraf kasta oo alifbeedka ka mid ah sidoo kale waxa uu leeyahay arday si waji ka waji ah uu u hor istaago oo waxa uu iskuul ku leeyahay nawaaxiga isgoyska baar ubax ee muqdisho mar walba qofku waxay ku xiran tahay hadba sida asugu soo gudbiya bariyahan damba wixii hadba bulshada wax lagu gaarsiin kara taano ku duulayaan page Facebook sameeyay oo bulshadii ay ku soo xirmeen oo farquuxintii aan soo geliyay saxiixyadii aan soo geliyay hatta madaxda ay kaga faa'iideysan page markaan muddo wadnay haddana waxaan u soo wareegnay aaladan TikTok baa dib loo furay iyada laftigeeda dabcan dadku waxay ka aaminsan in aalad xun tahay laakiin waa seef laba af la hadba waxay ku xiran tahay qofka sidoo asagu adeegsado ani hadda waxaan u adeegsadaa waxa loo yaqaan farquuxinta iyo saxiixyada dabcan dad badan oo waagaas iska fiirsan jiray oo ama iska waxaasna ayaa kaga faa'iideystay Falastiin Khaliif oo ah ardayd jaamacad dhigata ayaa sidoo kale ka mid ah dadka uu ustaad amiir baray farqurxinta iyagoo isticmaalaya aaladda internetka runtii akademiyada amiir haddii aan iraahdo in ka faalo ama wixii aan ka faa'iiday ka sheekay waqti badan ay u qaadanaysaa laakiin se waxaan u qirayaa inay tahay runtii akademiyad soo saarta arday Soomaaliyeed oo dhammaan daafaha caalamka kala joogaan oo runtii wax badan ay ka faa'iidaan khaasatan aniga haddii aan u soo noqdo waxaan ka faa'iiday wax badan oo iga maqnaa waxaa jira dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool kuwa dalka ku sugan balse jooga meelo caasimadda Muqdisho ka baxsan dhammaantood waxa ay ka mid yihiin ardayda mucallimkan waxa isku xirkooda iyo wax kala faa'iidooysigooda fududeeya baraha bulshada taas oo ah calaamad ku tusinaysa ama ku muujinaysa in aaladahani internetka yihiin seefo laba af leh maxamuud cabdinaasir soo faysana wararka warbaahinta qaranka Muqdisho